وكاري ما كاري من بسوري soo dhawaada saaxiibadeeda YouTube-ka waxaan idin hayaa war cusub oo degdeg ah warkan waa war muhiim ah warkan waa war aad u weyn isaaq dhexdiisii ayaa haatan isku dhex dagaalaya duleedka magaalada Burco war cusub ayaan idin hayaa nabsigii laga galayay dhulbahante warsangeli iyo nimankii Samaroon Boorama dega nabsigii isaaq uu ka galayay ayaa maanta soo baxay maanta waxa isdagaalayo soo nimankii isaaq ahay maahan maanta waxa Burco isku dhex dagaalaya soo nimankii maahan la baxay dawladii Soomaaliland ahayd warkaasaan idin hayaa dhimasho iyo dhaawac aad u fara badan ayaa laga soo tabinayaa duleedka magaalada Burco isaaq iyo dhulbahanta ma dagaalamayaan isaaq iyo Samaroon ama gudubiirso ma dagaalamayaan isaaq iyo warsangeli ama isaaq iyo hartina ma dagaalamayaan waxa maanta duleedka Burco ku dagaalamayo soo isaaq dhexdiisa maahan warkaasaan idin wada waa war weyn oo abdheeda dhammaantiin muuqaalkan like saar si uu gaar saaxiibo fara badan YouTube-kan subscribe saar waxbana ka dhibi mayso walaalkaasiina waxay u gashaa mar kale YouTube-kan subscribe saar gambaleelka furo saacad waliba daqiiqad waliba war cusub ayaan idin keenayaa dhammaantiin muuqaalkan hal iga fogeeyo nimankii isaaq maanta waa isdagaalayaan duleedka Burcay haatan xabadu ka socotaa isaaq maanta la dagaalami maayo nimankii dhulbahante isaaq maanta gudubiirsi la dagaalami ma isaaq maanta warsangeli la dagaalami ma isaaq dhexdiisa maanta isdagaalayo dhimasho iyo dhaawacay dhexdooda isku geysteen labadii xaq darro ku heshiida xaqay ku diriraanaan maqli jiray nabsigii dhulbahanta laga galay nabsigii gudubiirsi laga galay nabsigii laga galay nimankii warsangeli ceerigaaba deganaa maanta ayuu isaaq ka soo dhex baxay ilaahay yaa xaqii maanta calooshooda ka dhex ifiyay ilaahay yaa maanta xaqii banaanka keenay marka iga fogeeya muuqaalka ilma adeereelo hal iga share garayo ilma adeereelo muuqaalkan share garaya fogeeya oo YouTube-ka subscribe saarta si aad u heshaan warbixinada aan daqiiqad walba halkan ku soo daabaco markaas mar kale soo dhawaada war saaxiibayaal war cusub aan idin hayaa saaxiibayaal waxaan idin hayaa war cusub oo biyo kama dhibcaana macnaha war cusub oo weyn aan idin hayaa magaalada Burco duleedkeeda deegaanka saaxil waxa ku dagaalamaya waa nimankii isaaq ahaa cid kale waa markaan ku dhaho isaaqa dagaalama waa la yaaban tahay laakiin aniga basaasaan ula yaabana laakiin markii dambaan waxa la ii xaqiijiyay Burco salkeeda ama Burco duleedkeeda in isaaq ku dagaalamayaan maxaa marka dagaalka keenay waa su'aasha is weydiinayso oo aad u baahan tahay maanta in lagaaga jawaabo waxa is weydiinaysaa isaaq hal dhinacooba ahaayo dhulbahanti iyo warsangeli iyo Samaroon Boorama iyo Burco iyo ceerigaabo kula dagaalamayay maxaa maanta keenayaad is weydiinaysaa in isaaq uu asagii isdilo waan idin hayaa niman habar yoonis laha deegaamaysi waxay ka wadeen deegaan aan sidaas uga fogeen magaalada Burco niman kale oo isla jufada habar yoonis ka tirsan ayaa diiday meeshan baraagteedii waaye iyo sheeko reemii waa taqaanaa Muuse Biixi marka fiirdaya ninka dhan oo madaxweynaha sheegana ciidanu soo amray wuxuu yiraahday waa in meeshas deegaamaysiga laga diidaa nimanka ugu tirada badan habar yoonis ayaa xabadaha qaatay xabad dhimbila oo bagagac dhahe ayaa haatan waxay ka socotaa deegaanka saaxil ee duleedka magaalada Burco xabadu haatanay socotaa hadeertaanay socotaa wax hadaad Burco dadka taqaanid xabadu hadeertaanay socotaa waxaana haatan la sheegayaa dhimashadu ilaa 2 ruux inay tahay dhaawacuna waa hal ruux sida xogta haatan noogula sheegay labada dhinacna waxay helayaan gurmadyo aad u fara badan maanta isaaq waa u dhamaatay isaaq maanta isagiya isku dhex jeestay baraaga iyo deegaamaysiyan isku haya iyo dhul daqsimeed isaaqa maanta isku hayo wuxuu dawlad sheegtay isaaqba maanta waa ka Burco deegaamaysi isugu hayo dagaalku waa aad u socdaa haatan xabadu waxa ay ka socotaa duleedka magaalada Burco ilaa iyo Burco inuu ku soo fidaa la rajaynayaa shacabka labada jufo ee dagaalamaysa ayaana magaalada Burco haatan waxay ka wadaan gurmadyo ku aadan inay hub iyo saanad iyo waxyaabaha oo nafta lagu ceshto ama buskudka ama caanaha iyo inay geeyaan duleedka magaalada Burco xaaladu waa halis magaalada Burcana haatan waxa ka socda abaabul xoogan oo labada dhinacba isku hub urursanayaan saacadaha soo aadan ayaa la filayaa in dagaalku ilaa iyo Burco uu ku soo baaho isaaq waatii la dagaalamay gardarana uu ku maagay nimankii dhulbahantee darwiishta ahayd waa kuwa SSC iyo laascaanood waatii isaaq uu dagaal ku soo qaaday dadku waa la yaabanaayeen isaaq waatii laga guulaysto gooc cadal isugu geey dadku waxay aamini waayeen sababta isaaq gooc cadal loo geey
laakiin waxaad ogaatiin isaaqa lagu sheegayo in haddii xabad la dhaho inuusan waxba gelin isaaq faan wuu ku fiican yahay dhaqaalaha haddii loo xoogaa ilaahay wax waa siiyey xasidnimo haddii loo waa xasid isaaq laakiin isaaq hadday xabadu bilaabato shaki yuuskaa gelin wiilka isaaq inuu carara fiiri nimankii dhulbahanto la dagaalmaa maxaa waa la yaqaanaa dhulbahanto muxuu ka doonay wixii ku dhacay waa la ogaa haatanna isagii isaaq dhexdiisii ayaa waxa uu isku haystaa magaalada burco dhimashada marka labada ruux oo dhimashada meydkooda waa qaadan la yihiin nimankii kale waa laba jufo isaaq wax dagaalama warkayga si fiican ha kaaga dhaadhaco duleedka burcuuna dagaalku ka socdaa labada jufo maanta dagaalamayso meydadkoodii kala qaadan la yihiin fiiri war isaaq waxa uu samaynayo fiiri ilaahay ma ogtahay wuxuu necab yahay dulmiga aydiisa quraan kariimka ku sheegay ilaahay dulmiga inuu necab yahay ilaahay waxa waay kitaabkiisa quraanku wax walba ku cadeeyay isaaq waxay dulmi ku soo weerareen oo ay dulmi ugu yimaadeen nimanka dhulbahanta ee magaalada Laascaanood iska leh fiiri dulmigi ilaahay ugu bixiyay oo dulmigi ilaahay u jeeda oo marqaati ilaahay ka ahay oo ay ku soo weerareen Laascaanood maanta waa kaasa xaqii waxa maqli jiray feeruhu ka dilaacay xaqii maanta feeruhu ka dilaacay soo waxa burco gidaarkeeda isku haysto soo maanta isaaq maaha waxa burco maanta ku dagaalama soo isaaq maaha waxa maanta xabadaha isku baabi'inayo jika iska dhigaa soo isaaq dhexdiisa ma dagaalamayo haye soo ilaahay xaqii marka banaanka ma soo dhigin ilaahay soo xaqii banaanka ma keenin ilaahay waxa waaye qofkii dulmi wada naclada ilaahay yaa ku dhacay walaalaheena dhulbaanta shalay waa la dulminay maanta waa la dulminaa isaaq dhulbaanta markuu ka tago waa kaasa booramo aaday wuxuu dulminay sidoo kale walaalaheena nimanka booramo iska degano oo la dhaho guda biirsi ama samaroon booramo isaaq waa u joogi waay haddana waa kii ceeri gaabo ku dhuftay nimankii warsangani iyo hartiyo dhan haddana ceeri gaabo kula dagaalamay bishan gudaheeda isaaq 3 magaalo ayuu dad Soomaaliya oo ku xasuuqay Laascaanood dhulbahanta kula dagaalamay booramo wuxuu kula dagaalamay nimankii samaroon ceeri gaabo wuxuu kula dagaalamay nimankii warsangani haye ilaahay waa u sheegtaa badiis oo ku sheegay xaqa waa soo daahira maanta Soomahan waxa burco duleedkeeda isku haysto soo isaaq maahan waxa islaynayo maanta hubka isku wato soo isaaq maahan waxa maanta isaaqi intuu dawladnimada 35 sheeganay maanta waxa labada wiil iyo intaasoo dad uga dhaawacmayaan oo lagu baabaa soo baraagtan meesha kama qodo kartid iyo waa ka qodanaa soo isaaq iskuma hayo ilaahay inuu xaq marka ilaahay dulmiga ma jeclo dulmiga ilaahay ma jeclo marka saaxiib yaal halkaas xaaladu maraysa duleedka burco waxa ka socda dagaal aad u qaraar oo u dhaxeeyo beesha isaaq dhexdeeda waxaana la isku hayaa dhul daaqsimeed baraagtaana leeyahay iyo baraagta awoogaya laha iyo inta madeegi kartid intaan dagaal isku hayaa warka moogtaa waxa la rabaa moogtahay meesha ugu muhiimsan inaad ka abaartid isaaq maanta wuxuu isku hayaa waa baraagaysi iyo dhul birina waxa uu isku qaban doonaa maamulkan oo cabcabka ah leeyahay Soomaaliland la dhahaa birina waa la isku qaban doonaa waa arki doonta habar jecel iyo habar awal iyo garxajiso oo dhinacyada ka cabaada waa arki doonta oo ishaayo oo maamulka Soomaaliland isku haayo wax nimanka hadda sheegana Soomaaliland hadda ma jirto waa maamul isaaq la dhahaa meesha ka jiro sida haatan anigu aan aaminsanahay dad badan ay aaminsan sababtoo fiiri dawlad markaata nidaamkaaga dawladnimo waxa la rabaa qabaa'il kala duwan inuu ku midaysan yahay ama xindaabkaaga dawladnimo markii la fiirsho qabaa'il badan inuu hoos imaha la rabaa xukunku waa in maanta qabiilkii qabtaa biri maahay qabiil kala qabana saa damba qabiil qabana laakiin hadda runta aan ka hadalno dhulbahanta waa uu ka tagay warsangeli waa ka tagay samaroon waa ka tagay waa u jeedin 3 magaalo muhiim ah isaaq lunsheen Laascaanood oo gobolka Soole lunsheen waxay lunsheen booramo oo ah awdal waxay lunsheen ceeri gaabo sanaaga isaaq marka hadda wuxuu ku soo haray burco iyo meesha la dhaho hargeyso asagaan isku dhex qabanaa maanta waa ka is cunaa hadda waa ka saa dhalinyarada isaaq intii barahi bulshada soo galaan dhaha saas waaye habar yoonisa naxsuuqda waayiga ku hayo marka u jeeda isirnacayba meeshan ka socdo isaaq asaga ilaahay marka dambe soo ilaahay qofku waxa la dhahay oo u daajina maalinta dambe uu gacanta ku qabtaa isaaq wax badan la daajiyay inta ku bood maanta ilaahay iyagu isu dhex tusay waa ka sa xaqii feeruhu ka dilaacay waa taasa burco hadeertan dhalinyaradii fiiri dhalinyaradii burco waa kuwa media intii soo galaan maanta dhaha habar yoonisan leeyahay dagaalka gala aan dagaalan oo ku hayo isaaq marka u dhamaatay isaaq nothing awalna markii horena waxa dhulbahanta u dhameeyay hadeertan ilaahay yaaba waxa waay xaqii oo ilaahay feeraha ka dilaacshay
oon aragnaa indhahnaga ku aragnaa marka wixii soo kordhay saaxiibayaal dagaalka haatan ka soconaya duleedka magaalada Burco wixii ka soo kordhaa warar halkan ayaan kugula wadaagi doonaa fadlan YouTube-kan subscribe ka saar gambaleelkan furo si aad u hesho warbixinada aan daqiiqad walba halkan ku daabacayo muuqaalkana like saar siina share gareeyo saaxiibadaada la wadaag qaybta hoose ee commentiga bal aragtidaada sidee maanta u aragtaa in isaaqo uu Ilaahay istusay in Ilaahay isaaqi uu isku salladay oo maanta iyagii ay Burco isku dhex dagaalayaan oo maanta Burco wiilal iyo gabdho caanihii iyo maxal dhihi jiray iyo ay ka qaadayeen qooti duruuriga iyo furunta hore la geynaa raggii kale Koreeyada ahaayo wax galena maanta hub ay aruursanayaan Burco hub laga aruurina sidee u aragtaa ama harti noqo ama waxaad noqotaa isaaq noqo ama digiri miriflo noqo ama hawiye noqo macnaha xitaa jareer noqo macnaha sidee u aragtaa maanta inuu Ilaahay isaaq istusay isaaqi shala dulmiga dadka masaakiinta laascaanood ku duqeynay ku baabi'inay maanta in iyagii ay foolkaana ka dhex qaraxday sida u aragta qaybta hoose ee commentiga aragtida noogu reeb Cabdi Qaadir Siisi oo idin leh muuqaalka xiga ayaa inoo balana